waxaa sidoo kale shirka ka qayb galaya madax tiro badan oo ka kala timi dalal badan oo Afrika ah iyo sidoo kale wakiilo ka socday wadamada Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Belgium iyo wadanka Jarmalka. warbixin khudbada madaxweynuhu shirka ka jeediyay iyo waxyaabuhu uga hadlay soo koobaysa waxaynu ahayo wariyaheena Farax Abdulqaadir. madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas markii uu la hadlay hogaamiyaasha Afrika ee shirkan Tana From ka qayb galay waxa uu sheegay in qaaradda Afrika ay ku caan baxday kheyraad dabiici ah kaas oo adduunka laga helo meelo fala ku tirisa waxa uu madaxweynuhu kula taliyay madaxdii ka soo qayb gashay shirka in laga faa'iideysto kheyraadkaasi. macdanta Afrika waa qani dhinaca kheyraadka dabiiciga sida saliidda ceeriin oo ay ka mid yihiin shidaalka iyo gaaska laakiin waxaan u baahanahay inaan helno hogaamiyaal wanaagsan oo fahmi kara kheyraadka faa'iidadiisa. haddaynan hadda ka faa'iideysan oo aan la soo bixin waxaa dhici karta in waqti dhow laga baxo isticmaalkiisa waayo haddaanu nahay dadka ku nool qaaradan Afrika ma isticmaalno teknolojiyadda cusub ee maanta adduunka laga isticmaalo caalamka intiisa kale waa ka sii horumaraysa maalinta ka dambaysa ayuu yiri madaxweynaha Puntland. madaxweynuhu waxa uu ka hadlay dhinaca ammaanka ee qaaradda Afrika waxaana uu qeexay in Afrika looga baahan yahay in la iska kaashado ammaanka guud ahaan ee gobolka isla markaana la isdhaafsado xogo ku saabsan dhinaca ammaanka si loo sugo amniga korna loogu qaado. waa muhiim in la iska kaashado ammaanka guud ee qaaraddan Afrika isla markaana la wadaago xogo ku saabsan ammaanka kuwaas oo quseeya ilaalinta iyo xasiloonida wada noolaanshaha dadka ku nool qaaraddan qaniga. horumarku waxa uu ka dhashaa oo saldhig u ah nabadana waxa suuro gelin kara xiriirka wadamada Afrika oo hagaaga ayuu madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas oo la hadlayay hogaamiyaasha Afrika ee ka qayb galay shirka magaalada Bahardar ee dalka Itoobiya ku soo gabagaboobay. madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali ayaa hoosta ka xariiqay in Soomaaliya maanta ay ku heelan tahay geedina ugu jirto horumarka isla markaana ay doonayso inay dib uga soo kabato wixii hore u soo maray haddana ay ka jirto siyaasad wanaag kala dambeyn iyo ixtiraam iyo dib u noolayn qarannimada Soomaaliya oo si wada jir looga wada shaqeynayo.